مرابحه وهب وحكى إيبسي أو كتب فقهية أما علماء فقه وأيكور رمان أصلها إنك سويت شيء ده ربحي أو فائدة هي معاش وإن وحي قفك وصاقتي وفائدة أنتو صاروا يراهضوا أنت سان كصاقتي أنت سان كاجا قضية marka iibka laba nooc u dhaca sida suuqyadeena markaad u fiirsato aad arkayso in qofku uu qofkan wax ka iibinayo u sheego waxana wixii uu isaga ku taagnaa ama wixii ka galay raasimaalkii wixii ku soo iibsaday inuu ka warramo kadibna uu faa'iido saaro yiraahdo intaana waan ka soo gatay intaana waan kaaga gaday iyo inuu si guud u yiraahdo alaabtan badeecadan intaasaan ku gadaya markastaba faa'iido way u saaran tahay laakiin haddaanu ka warramin raasimaalkii ka galay oo aanu faa'iidadana taa ku dul salaynin muraabaxa lama yiraahdo muraabaxa waxa la yiraahdaa markii uu wixii ka galay ama wixii ku soo gatay uu ka warramo uu sheego faa'iido inta lag baan saarnayaana uu yiraahdo sidaasi uu kaga gado qofkii ka iibsanay taas markaa muraabaxa la yiraahdaa xagga ahkaamta wuxuuna la ahkaamtahay iibkii kale oo sidii iibka kale wixii loo shardiyay ayaa iyadana loo shardiyaa shuruudihii iibka dhan way leedahay waxay la dheer tahay waxa la doonayaa qofku inuu ka run sheego waxa uu ka warramay markuu yiraahdo intaasaan ku soo gatay intaana waan kaaga gadaya waa inay runtii tahay oo inta uu ku soo gatay marka hadduu yiraahdo intaasaan ku soo gatay wuxuu sheegayaa in lacagtii lagaga iibiyay xataa sheegi maayo xamaalkii iyo ku dari maayo wixii la mid ka raacin maayo hadduu doonayo inuu kuwa raaciyo waa inuu yiraahdo intaasay igu joogtaa intaasaan ku soo gatay aanu oranin laakiin raada intaasay igu joogtaa intaana waan kaaga gaday way u banaantay lafteedu laakiin ereyga ayuu baa la doonayaa xaqiiqadiisa iyo runnimadiisa in la ilaaliyo marka waan ku soo gatay hada tiraahdo waa lacagta marka hore ku soo gatay kaliya xamaali iyo xayl kale kuma jirayaan hadii aad tiraahdo intaas uu igu joogaa ama waarta kharash inta dhanba iga galay hada tiraahdo waad ku dari kartaa waxyaalihii kale oo dhan waxa marka la doonayaa qofka muraabaxo wax ku iibsanayay ka ku iibinaya labaduba inay ilaaliyaan ahkaamta sharciga ah oo ay tahay imika tan bangiyadu ay aadka runtii ugu shaqeeyaan waxa la doonayaa inuu qofkan macmiilka bangiga u imanaya markii uu marka arinta u sheego inaan horta isagu alaabtii gadanin dadka qaar kood intay ka bixiyaan arburi wax ka sii bixiyaan iyagu ay sii gataan ay hadana bangiga u imanayaan taasina sax maaha waa inuu qofku markuu wixii soo arko ay arinta cajibiso bangiga u yimaado si bangigu u soo gato waa inuu marka bangiga isagu gato markuu bangiga gato ee uu la wareega alaabtii ee uu milkiyo marka kadib uu qofkii macmiilka ahaa ikhtiyaarkiisa leh uu oranaya intaasaan kaaga gadnay iyadoo marka faa'iido